Bismillahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan doonayaa inaan idinla wadaago nubdo kooban ama waxaynu nidhaahnaa nubdada af Soomaali. Qoraal kooban bay noqon kartaa, laakiin waxaa la hadal kooban oo ku saabsan kitaab qoray sheekhii caanka ah la yidhaha Sheekh Cabdiqaadir Cooda, oo ka mid ahaa culimadii xarakada islaamiya ama muslimiinta, dhaqdhaqaaqyada muslimiinta dadkii afartanaadkii ugu xooga badnaa ku jiray. Sheekhaasi waa qaanuunyahan dastuurka ay dasaatiirta aada u yaqaanay, diintana aada u yaqaanay. Kutub fara badan buu qoray. Kitaabkiisa ugu la yaabka badan waxaa ka mid ah dadku aadka u yaqaanaan al-islaamu bayna jahli abnaa'ihi wa cajzi culamaa'ihi. Kitaabka wuxuu u bixiyey islaamku wuxuu ku dhex dhintay ama uu ku dhex dayacmay aqoon darrada dhalinyartiisa haysata iyo gaabiska culimadiisa ku jira. Kitaabkan wuxuu kaga warramayaa dadka muslimiinta dhibta haysataa inay tahay dacfi aada u fara badan oo dhinac kasta ka saameeyey, aqoon darro ballaadhan oo noloshoo dhan ka saameysay, taasoo keentay inay ihmaal iyo dayacaad ku sameeyaan, inay islaamka qaataan, inay islaamka practice gareeyaan ku sameeyaan. Wuxuu ka warramayaa kitaabkan wuxuu kaga warramayaa islaamku siduu yahay diin caalami ah, siduu yahay diin ilaahay uu adduunka u doortay, iyo ahamiyadda ay nolosha guud u leedahay. Waxaa kaloo kaga warramayaa oo uu aada ugu qaadaa dhigayaa dadka cadowga ku ah islaamku, meelaha ay islaamka ka tooganayaan, oo laba qodobada ugu waaweyn ay ka mid tahay in aanu islaamku ku habboonayn casrigan aynu marano. Taasuu ka jawaabayuu leeyahay islaamku waaba caalami, mana aha wax kolba wax lagu daro, waa casri kasta uu ku habboonyay. Iyo qodobka labaad oo ah islaamku inaanu xukunka ku habboonayn faslu diin can dowla, taana uu ka jawaabay. Markuu intaa ka jawaabo ayaa wuxuu isweydiinayaa mas-uuliyadda yaa leh inuu sidan u dayacmo islaamku, yaa leh. Deedna wuxuu leeyahay guud ahaan dadka muslimiinta ah wadale marka koowaad, mar labaadkana dowladaha iyo madaxda iyo xukuumadaha ka jira dhulka muslimiinta ayaa leh, mar saddexaadkana waxa uu leeyahay mas-uuliyadda waxaa leh culimada ayaa leh. Culimada ayaa mas-uuliyadda ugu weyn iyo dembiga ugu weyn leh. Iyaga ayaa ka dhigay islaamkii qoraallo la yskugu aqriyo masaajidada dhexdeeda oo u soo bixi waayey nolosha inteedii kale, ayaa u leeyahay. Kitaabkaasi qofka xiiseeya arrimaha islaamka wax weyn buu ka tarayaa haddii uu akhriyo. Marka dhalinyarta wax akhrida hadday ay maqlayaan, waxaan kula talin lahaa inay akhriyaan. Aadna waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.